السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي waa idin salaamay fajir wanaagsan, subax wanaagsan, duhur wanaagsan, casr wanaagsan, maqrib wanaagsan, cisho wanaagsan, waqti walba ay ku tahay wanaagsan. alxamdulilah alladii amaatana thumma axyaana thumma ilayhi nushuur. waa cusub aan usoo bariyay, waa la nabad qabaa, waa la barwaaqaysan yahay. maasha allah tabaaraka allah. inta aa caafimaad qabta caafimaadkaad ka faa'iidaysa. maanta waxay ku saabsan tahay qisada salaada ay ka sheekeynaysa iyo ahmiyadeeda, iyo ninkii qisada ay ku dhacday aa ka sheekeynayo. wuxuu leeyahay aniga waxaan ahaa imaam ayaa ahaa, mu-adinna waxaa ahaan jiray abu saalix nin la dhaho, min asaalixiinta u ahaa. wuxuu ka markhaati kacay nin fiican inuu ahaa, wuu dhintay ninka. wuxuu leeyahay qariyo wadankan ka mid ah ka dhacday sacuudiga. wuxuu leeyahay ninkaas min asaalixiintu ka mid ahaa, nin salaada ku fiican, maasha allah tabaaraka allah, dayib ee afkiisa laga nabad galo, maasha allah tabaaraka allah, dad kalena ay jecel yihiin uu ahaa, ilaahay u naxariisto. markii dambe markuu asaga dhintay, aniga imaam iyo mu-adin labadaba anaa isku noqday. habeenada ka mid ee waxaan salaada usoo kacay thuluthul akhiir waxay 9 saac ka bilowda waaye, maasha allah tabaaraka allah. yacni waxaan dukan jiroo dhahay sunnooyinka dukanaya, shafca oo dukanaya, bacdeen uu tiro dhahay witirka ugu dambeysiinaya. yacni badriyu soo kacayaa sida 9 saac 8 saac oo kaleeto ilaa salaada alfajirka camal aan dujin jiray oo dhahay. masaajidka aan soo aadayay, maasha allah tabaaraka allah, salaata cala rasuulillah. wuxuu leeyahay waxaan salaadii markaan sunnaystay oon ducaystay, oo maasha allah tabaaraka allah, qof salaadii imaanaya ma lahan. adinkii oo tambiiha adimay, salaatu khayru min annoom. adinkii koowaad qof imaaday ma lahan. adinkii oo labaada haddana adimay, anigoo mara qalbigayga mudaayaqaad ah ka dareemaya ama cariiri, oo aan la yaabanahay muslimiinta waxay u imaan laayihiin ay u dukanaynin. maasha allah tabaaraka allah. waxaa sameeyuu dhahay mukabiraadka ama makarafoonada masaajidka fiirfiiriyey, kaanu inay dadka salaada maqlaynin camal aan u maleeyay. waan fiiriyey, way shaqeynooyinoo dhahay, waa dheerdheereeyey, anigoo oo qalbigayga mudaayaqaad ama ciil ka dareemayo. markii salaadii aan adinkii adimay 20 daqiiqo rubac saacan sugay, 20 daqiiqa sugay, qof imaaday ma lahan. waa xanaaq anoo ku hadlaya camal. waxaan dhahay uu leeyahay yaa naas tacaalu sallu aan dhahay oo dhahay, yacni xooga u qeyliy, yacni xaafadda waa laga maqlayaa oo dhahay codkeyga. qof imaaday ma lahan. gadaasheydaan fiiriyey, salaadii waa la gaaray, weliba daqiiqadaha lasii dhaafay. masaajidada kale yacni way taagan yihiin, aniga wuxuu dhahay salaadii waa istaagay, yacni tujisaa bilaabay, wax gadaasheyda taaganna ma lahan. allahu akbar markaan dhahay oo faatixadii akhriyey, wala daaliin markaan maraayo, mikrafoonka markaan ku hadlayn waxaan dhahay kaaleya dukada muslimiin aan dhahay oo dhahay. waxaan u maleysaa masaajidkii aamiin aan maqlay oo dhahay, kainoo masaajidka hal mar uu isla kacay oo dhahay, kainuu salaatul jumca inaan dujinayo oo kaleeto. naftirkeyga salaada gadaasheyda markaan fiiriyey oo salaada xirinayo, qof ma taagnayn, waa isku naxay. ilaa 2 daqiiqa camal ayaan aamusnaay uu leeyahay. maasha allah tabaaraka allah, salaata cala rasuulillah. bacdigeedii waxaan sameeyey uu leeyahay anigoo sidii u naxsan, qur-aankii aqriyey, waa waday, bacda faatixadii oo aamiin leega daba dhahay. anigu waa maqlayaa oo dhahay masaajidka kainuu in la buuxa camal aamiin leega daba dhahay oo dhahay. maasha allah tabaaraka allah. cabsi iyo rucub iyo lugaha ay gariiray. maasha allah tabaaraka allah. ragcadii labaad waa sujuuday, waa rukuucay. ragcadii labaad ayaan galay sidoo kaleeto. markaan faatixadii aqriyay, wala daaliin markaan malaay, aamiin, masaajidkii hal mar oo isla kacay oo dhahay, kainuu in salaatal jumca la dukanayo oo kaleeto. aniga nafteydii anoo salaada dujinayna waa isla hadlaya, cabsi way i gashay, rucubaa i galay, waxaa i galay gariira i galay. alxamdulilah. ragcadii labaad markaa aamiin leega daba dhahay, sakiina qalbigayga ku imaatay, ama waa degay oo dhahay, huduu aa igu imaaday. maasha allah tabaaraka allah. salaata cala rasuulillah. wuxuu leeyahay huduu aan qalbigayga ka dareemay, cabsidii oo ragcadii koowaad igu jirtay way iga degtay, gariirkii waa iga baaba'ay. qur-aankiiyaan sii akhriyey, waa salaama noqsaday markaa ragcadii labaad dhameynay. qalbigayga marra wuu keeni waaye, ama tajaruc waa ku sameyn waaye, ama geesinimadaas waa yeelan waaye, gadaal waa soo fiirin waaye oo dhahay. istiqfaarkiyaan waday, tahliil, takbiir, waa istiqfaarsanayey. maasha allah tabaaraka allah. adkaarta akhrisanayey. yacni waxaa moodaa sokorta inay iga sii dhacayso oo kaleeto, min rucubkii iyo cabsidii darteed. ما شاء الله تبارك الله. صلاة على رسول الله. وحو ليهي
anigoo sidii aan ahay oo sidii u gariirayo oo sidii u cabsanayo. masjidka waxaa ku dhegan suuq weynaa ku dhegan, inay salaadii ay soo iftiinto, banaanka uu soo iftiimo aan sugoyaa dhahay. maasha allah tabaaraka allah, salaata cala rasuulillah. bacdigeedii wuxuu dhahay wax dhacday in uu maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah uu dadkii hadalkooda aan maqmaqlo. markaan dadkii hadalkooda maqmaqlay aan geesinimo iska sameeyey, aan gadaal soo fiiriyey, yacni anoo sidii u fadhiyay aan soo jeestay, yacni dadka anuu usoo jeesanaya iska dhigay oo dhahay waa isku nahay oo dhahay. markaan saas u fiiriyey meeshii qof ma ku jirto masjidka, ilaa rubac saacni dadkii waa kasii jeeday oo dhahay, aamiin iga daba dhahayo, qofna ma aan arkin. marka wuxuu leeyahay sheekha, aniga waxaan u maleeyey naas mukalifiin oo min cibaadallaahi saalixiin, hadday rabaan waxay noqon karaan jin oo muslimiin markay dadka ii imaan waayeen ila dukan waayeen muslimiintii oo insiga ahaa. aniga saasaa u fahmay, idinka maxaa u fahanteen uu leeyahay. anigana waxaa idin weydiinaya, idinka dadkaasoo kale maxaa u fahanteen? nin salaad dujinayo oo qof uu imaan waayo oo keligiis masjidka salaadii xirtay oo laga soo daba tukaday, idinkana maxaa dhihi laheedeen? tacliiqaadka kusoo jawaaba. maasha allah tabaaraka allah, salaata cala rasuulillah. addoomanka ilaahay waa badan yihiin, maasha allah tabaaraka allah. xayawaanaadka sidooday u takbiirsadaan, u tahliilsadaan, u istikfaarsadaan. anagana bini aadan aan nahay, saasoo kaleeto istikfaarta iyo takbiirka, tahliilka iyo salawaadka inaan ilaalino aana laga raba. maasha allah tabaaraka allah. maasha allah tabaaraka allah, salaata cala rasuulillah. sheekhi wuxuu dhahay rucub darteed meeshii aan fadhiyey waan ka kici waayey, xataa waa istaagi waayey, ilaa waxaan sugay banaanka aftiin oo kusoo noqdo ay dadka suuqa wada imaadaan oo hadal aan si fiican u maqmaqlo. markaas aan istaagay, aan niyadeyda gashtay in aan istaago ama oon salaadii aan aado oo ka baxo masjidkii. maasha allah tabaaraka allah. sheekha wuxuu leeyahay waxay ahaayeen laga yaabaa, uu leeyahay inay ahaayeen laga yaabaa jamaaca mukalifiin bisalaa inay ahaayeen laga yaabaa, ama jamaaca oo muslimiin oo salaada inay la dukadaan imaamka ay ahaayeen laga yaabaa. uu leeyahay waid sarafnaa ilayka nafaran min aljin yasmacuuna alqur'aan. maasha allah tabaaraka allah. jinkana waxaa ku jiro dad qur'aanka nala dhagaysto, kuwa muslimiin maasha allah tabaaraka allah. fii buyuutin adina allah an turfaca ismuhu fii quduwin walaasaal. maasha allah tabaaraka allah. aayadaasna wuu kusoo qaatay sheekha masjidka ama imaamka masjidka. maasha allah tabaaraka allah. qisada waxay ku dhacday imaam masjid oo wadankan salaad ka dujinayo qaryooyinka, qaryo ka mid qaryooyinka wadankan sacuudi arabiya ku yaalo. maasha allah tabaaraka allah. qisada waa qiso xaqiiqe maasha allah tabaaraka allah. imaam ay la dugteen intaasoo dad yacni soodka aan maqlay uu leeyahay masaajidka inuu buuxo oo kaleeta aan soodka u maqlay. markaan gadaal soo fiiriyeyne cabsi oo kow i gashay. markaan istikfaarka iyo tahliilka iyo takbiirka iyo adkaartii aan dhamaystayne aan gadaal usoo jeestay, waxaan arkay masjidkii inuu faadi yahay. subxaan allah. dad badan oo mutacaliqiin bisalaa oo quluubtooda salaada ku jirto. maasha allah tabaaraka allah. waxaa kow maalinta alqiyaama lagu weydiinayana salaadaada waaye in salixad umuurtaada oo dhan. hadday salaada kaa qaribanto oo salaadii laga aqbala waayane, alxamdulilah, qof walbo xisaabtiisii cinda allah ayay jirtaa. qof walbana ilaahay ayaa xisaabinayo. laakiin salaadaada hadday fiicnaato oo salaadaada ay qurux badnaato, ay salaadaada iyo afkaada iyo idinkaada laga ammaan helo, waa waxyaabaha ugu horeeya oo jannada lagu galo. maasha allah tabaaraka allah. salaata cala rasuulillah. dad salaadooda ka fikiro, maasha allah tabaaraka allah, rabbigooda caabudo, qalbigooda maqaafat allah ay ku jirto. allah naga dhigo. maanta qisadeen waxay ku saabsaneed imaam masjid iyo muadinkii oo hore u dhintay oo salaax laga sheegayo, yacni abu saalix la dhahay uu markhaati kacayo inuu min asaalixiinta yahay. maasha allah tabaaraka allah. hal qof, laba qof, saddex qof hadday markhaati kugu kacdo inaad qof fiican aad ahayd, xaalkaada u fiicnaa, salaadaada u fiicnaa, afkaada laga ammaan helayay, jiiraanka uu ka ammaan helayay, ummadda ilaahay ay kaa nabadgelaysay. maasha allah tabaaraka allah. waa bushrada iyo calaamadaha ugu fiican oo qofka bini'aadanka jannada ku galo. maasha allah tabaaraka allah. khayrka aan isfarno ya banaad muslimiinta oo dhan, nin inaag waxaan nahay khayrka aan isfarno, alla ka cabsiga aan badino. maasha allah tabaaraka allah. qof xisaabinayo ma lahan adduunyadan, qof walbo rabbigiisa xisaabinayo. xalkuu adag yahay, adduunyada xaaladeeda way adagtahay. waxaa arkaysaa hooyo ilmaheedii dilayso oo cunayso, subxaan allah.
waxyaabaha mucjisooyinka adduunka ka dhacayo qof wuxuu ku leeyahay qiyaamihii hala gaaray qiyaamihii waa la taagan yahay mar hadday naftu ku qabato oo ruuxa lagaa qibloodo qiyaamihii aaba la taagan yahay khalaas waa qiyaamahaagii waa qiyaamahaygii waa qiyaamaheena maasha allah tabaaraka allah salaat cala rasuulillah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aniga iyo qiyaamaha waa isla dhalanay yacni iyadoo la sheegaya qiyaamaha ah anigana adduunyada imid waay annagana adduunyada waxaan imaanay iyadoo weli qiyaamaha la sheegaya laakiin annaga waxaa naga maqan qiyaamaha markii ruuxaas lagaa qibloodo inuu yahay xisaabta kow kuu bilaabanayso inta raar biyoodka saaran tahay ama sariirta sii saaran tahay adiga iyo dadka waa kala bacli guurteen waxaa isu bedelaysaa meydka magacaada wuu isbedelayaa hala dadejiyo ninkii kuugu jeclaay cunugii kuugu jeclaay hooyada kuugu jeclayd way ku dadejinaysaa qabriga in lagu geeyo marka maasha allah tabaaraka allah aan ka fikirno ahami shay salaadaada inay salaaxanto salaadaada inay wax sax noqoto muslinkana aad ku dhamaystirtid oo aad ka dhigtid inuu afkaada iyo adinkaada ka nabadgalo muslimka waa kii afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgalay waa tii xadiidka hore loogu dhahay maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah maanta aan qisada waxay ku saabsaneed oo isfaraynay ahamiyadda ay leedahay salaada maasha allah tabaaraka allah adoomanka bini aadanka iyo adoomanka jinniga ahne in lagu wada leeyahay waxaa kaloo rabaa inaan idin weydiiyo ninkaas dadka la dukadeen maxaa dhihi kartiin bini aadan miyaa maxaa ku fikiri kartiin uu sheeqa leeyahay qisada ka sheekeynayo ma jin baa la dukaday ma insi baa la dukaday maxaa dhihi kartiin laana masaajidka mara irtaja almasjid uu leeyahay mara masaajidka kainu salaat aljumca anuu tujinayo camal masaajidka aad ayuu soodka ula gariiray waladaaliin markaan dhahay aamiinta mara irtaj almasjid uu leeyahay masaajidka way gariirisay aamiinta maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah bal ra'yigiina idinkana tacliiqaadka maxaa dhihi kartiin mu'miniin oo min aljin waa ma dhihi kartiin ama muslimiin min aljin waa dhihi kartiin waxa sheeqa la dukaday maanta qisada meeshaas aga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu